رئيس الوزراء حكومة فدرالka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta booqasho shaqo ku tagay xarunta maamulka gobolka Banaadir. Ra'iisul Wasaaraha ayaa booqashadiisa ugu kuurgelayay habsami u socodka howlaha maamulka gobolka oo hakad ku jiray wixii ka dambeeyay geeridii duqay hore ee magaalada Muqdisho. Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan. Khayre ayaa kormeerkiisa warbixino uga dhageystay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed. inta kadib ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha ayaa ka wada hadlay sidii xukuumadda iyo maamulku ay isaga kaashan lahaayeen fulinta howlaha qaran ee ka dhaxeeya. gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay in maamulkiisu xoojinayo fulinta howlaha laga doonayo inuu u qabto ummadda. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa isaguna sheegay in maamulka gobolka looga baahan yahay qorshe wanaagsan oo lagu xaqiijinayo gudashada howlihiisa. dhinaca kalena ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay doorkeeda ka qaadanayso horumarinta howlaha gobolka Banaadir gaar ahaan amniga, xasiloonida, dib u dhiska, soo celinta bilicda iyo howlaha kale ee la midka ah.